Maayirka Degmada Burco ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray dhismaha sariibad casri ah oo ka kooban qaybo kala duwan isla markaana qandaraaskeeda qaatay shirkadda dhismaha ee SUBSCIRBE. Munaasabad kooban oo xadhiga lagaga jaray kawaankan cusub ee laga hirgeliyay xaafadda Maxamed Cali gaar ahaan Sayladda ee magaalada Burco ayaa ka qabsoontay gudaha kawaankaasi. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda SUBSCIRBE oo si rasmi ah ugu wareejiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Burco dhismaha kawaankan casriga ah iyagoona faahfaahiyay qaybaha uu ka kooban yahay kawaankaasi. maanta oo ay tahay 29 bishii 7 annagoo shirkaddii dhistay suuqa Sayladda oo ka mid ahaa mashaariicii GBLG-da shaqadii oo aan dhamaynay waxaan ku wareejinaynaa maamulka dawladda hoose ee degmada Burco suuqana waa suuqii labaad ee Maxamed Cali wuxuu ka kooban yahay suuqana qaybtii hilibka qaybtii khudaarta qaybtii caanaha qaybtii kabatolaha oo kabayo waxaas lagu talay qaybtii tumaalada iyo maradii kala duwanaa day tukaana noqotay haday bacadlayaal iyo dawaarlayaal iyo waxa ay noqotay insha Allah taala xarka jarka 29 bisha 7 2018 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mashruuci dhameystirmo. xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco ayaa halkaasi ka sheegay in loo baahan yahay horumarka degmada Burco in la sii laabo. alxamdulillah waxtar weyn maanta soo kordhay weeye magaalada Burcona waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah taala anagana waxa naga go'an inaanu wax qabadka degmada Burco sii laabno si insha Allah taala madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku ballan qaaday xilligii ololaha uu ku jiray inaanu anaguna insha Allah taala wax qabadka iyaga maalinta ka dambayso si laabno waxa kale oo halkan laga heli doonaa suuqa shaqaalayn badan. Maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan Muraad oo ugu dambeyntii ka hadlay halkaasi ayaa u mahadnaqay maamulka shirkadda SUBSCIRBE ee dhistay dhismaha kawaankan casriga ah ee ka kooban qaybaha kala duwan isagoona maayirku u soo jeediyay ganacsatada ku qanacsan doonta sariibadani cusub in ay si wada jir ah u ilaaliyaan nadaafadda kawaankani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidatan. suuqan waxaan isleenahay ha ka faa'iideysteen dadka ku nool xaafadda Maxamed Cali siiba qaybta Sayladda iyo agaarkeeda waxaan ugu talagalay dadka bacadka wax ku iibsanay inay halkan harka soo galaano halkan wax ku iibsadaan waxaanu la socodsiinaynaa meesha nadaafadeeda in la ilaaliyo anaguna waa la ilaalin doonaa shaqaale ilaaliya iman doona waa la shaqayn doonaa aad iyo aad baa dhamaantiinba u mahadsantihiin suuqii kasta ee furma wuxuu inoo soo kordhinaya muxuu ahaayay shaqo abuur buu inoo soo kordhinayaa bilic buu soo kordhinayaa ogolaanna mayno qof dambe markaan halkan imika samaynay bacadkan wax ku iibiya la ogolaan maayo waa inay gudaha soo galaan halkan wax ku iibiyaan suuqani qaybo badan buu ka kooban yahay qaybta imkaanu joogno oo ah tii caanaha iyo khudradda qaybta inaga horeysa oo ah maartay tii hilibka halkii tumaalaha dadka birta tumaay fadhiisan lahaayeen kabatolayaashu meeshay fadhiisan lahaayeen dawladadii iyo suuliyadii oo intaa dheer waxa kale oo ay leeyihiin bakhaaro ilaa 15 bakhaar meelahaas bannaynay 16 ku meersan ayay leedahay waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda SUBSCIRBE oo qorshahan qandaraaskeedii aanu siinay oo si fiican u dhameystirtay. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah xadhiga uga jaray kawaankani cusub maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan Muraad dhismaha kawaankani cusub ee dawladda hoose ee degmada Burco ka hirgelisay xaafadda Maxamed Cali gaar ahaan Sayladda ayaa ka mid noqon doona mashaariicda horumarineed ee dawladda hoose ee degmada Burco ay ka wado gobolka Togdheer. Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ariel Burco.